السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحادي عافيماد قبان إذين رجينيا iyo nolol wanaagsan haweenaydan oo muddo 3 bilood ka hor ay nala soo wadaagtay su'aal oo tiri ninkaygu waxa uu quutaa ama uu ku nool yahay oo dhinaca gogasha ka xoojiya ama tamar u sameeya kiniinada raganimada lagu xoojiyo si toos ah ayaan farmasiyada uga soo iibsadaa kadibna taas ayuu isticmaalaa laakiin waxaan ka arkaabay tiri riin waxaana lagu soo sheegay xanuunka dhikarka waxaanu halis ugu jiraa taaba lagu yiri xilligaas ninkayga in xanuunka stroke ama faaligu kugu dhaco maxaan siiyaa laakiin qaabkeedan u nafaqayn karaa kiniinkaana uga maarmi karaa tala marka aynu siinay ayaa gudhigeedu waxay ahayd in uu qaraha isticmaalo isla markaana cuntada ay si fiican uga hagarbisto cunto nafaqo badan oo borotiin fiican leh oo maadada zinc ay ku jirto gaar ahaan kalluunka tuna fishka salmonka iyo haddii marka ay heli kartaba kalluumyada kale ee kala duwan iyaguna tamarta fiican ee dhinaca raganimada laga helo inkastoo kuwaasi inta badan aanay caan ku ahayn geygeena laakiin kalluunka ay heli karto sidoo kale xagga qudradda waxaynu niri qaraha cabitaan uga samee isla markaana ha isticmaalo toonta iyo dhagayarahana cuntada ugu dar oo iyaguna u wanaagsan dhankaas haweenaydii waxay tiri taladii baan qaatay waxa kale oo aynu xilligaa talada ugu darnay inuu galmada yarayo maadaama nin weyna uu yahay xaaladaas inuu kaantaroolo oo uu yaraysto sidii bay samaysay waxay nagu soo celisay qoraal imika muddo 2 bilooda laga joogo hawshaas ayaan ku guda jiray bay tiri tan iyo maalintii taladii aad siisay ninkiina isbedel toosa ayaan ka arkay kiniinkii iyo wixii uu isticmaali jirayna uu iska daayay imikana waxa uu xilliga uu iimanayo xilli aanu si fiican u qanaco oo gogasha uu ku wanaagsan yahay weeye aad baan ugu mahadnaqayaa bay tiri muuqaaladaad noo soo samaysaan iyo bulshada iyaguna su'aalaha aynu soo weydiiyay aanu ka faa'iideysano iyo adigaba mahadda koobaad ilaahay baa iska leh laakiin mahadaha kale dadka soo weydiiya su'aalaha iyo adigoo si hagar la'aan ugu soo jawaababa waan idinka mahad celinayaa bay tiri aad bay u mahadsan tahay haddii haweenayda aynu mahadnaqeedna ka nimaadno kiniinadaas la qaadanayo muuqaalo horena waynu ku tilmaamnay ee without prescriptionka lagu qaadanayo talala'aanta lagu qaadanayo ee counseling la'aanta lagu qaadanayo ee daws la'aanta lagu qaadanayo ee warqad la'aanta lagu qaadanayo waxa ay keeni karaan ama ay keenaanba khatar waaweyn waliba ragga waaweyn marka laga yimaado imika waayadan dambe waxa uu isticmaalo dhalinyarta waa kuwa aynu uga digayno dawooyinka heerbalka ah la hubo ee iyaga qudhooda aad ka soo xiganayso cid ehel u ah caafimaadka waxa la isku dardarayo dawooyinka heerbalka qudhooda qaar baa qofka khatar gaarsiin kara haddii aan dawska loogayn ama xaddiga ay ka samaysantahay xaddiga qofku u baahan yahay iyo awoodda raganimada inta ka dhiman ee la doonayo in la xoojiyo markaas waa in qof herbalistiisa ama doctor markaa traditionist oo awoodeedii iyo aqoonteedii leh waa in la heli karaa sidoo kale cuntooyin horeynu u tilmaamnay biyahaaga iyo awooddaadu waxay ka samaysmaan cuntooyinka aad qaadato ama aad isticmaasho fadlan isku day inaad qaadan karto cuntooyin wanaagsan si aad u samaysato tamar kugu filan iyo awood kugu filan cuntadaad qaadanaysaana waa inay ahaataa cuntada iyaga qudhoodu aynu baladiga u naqaano intaasaynu ku soo ururaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.